الله وبركاته أصحابتي إذا قالوا كحلم بيش كيجن يوتيوب أنتي نيجو عصب سبسكرايب يا لايك تا يا شير تا إن أديكوا رجالسان وبلنتينا وحكلون هذا المانتا نيجو هيا السير أو قابل أو دوان لحظي ديجان كان نكون عندنا هاي إثيوبيا كارهان مجال الدربة قصة لي لحظي وحكي كوبانت هاي وقصير أو قابل أو goobjoogwaha waxaa jira qoysaska Soomaaliyeed kamid ah oo deganaa magaalada Darrabe oday xoolo leh oo xoolihiisu ay badan yihiin oo xoolo fiican iska haysta iyo laba wiil oo dhalay qisadii kala qabsatay oo aan isku dayayo in aan halkan idin soo koobo nuxurka qisadu ay leedahay markay sidaa tahay qisadani waa laba wiil oo walaalo ah oo kala weyn iyay qabsatay qisadani waxay ka kooban tahay waa qiso aad la yaabi doontaan idinkuba markaad nuxurkeega aad fahantaan qoysaska Soomaaliyeed kamid ah oo degan magaalada Darrabe iyay ahaayeen laba wiil oo walaalo ah oo kala weyn oo curad iyo curad ku xigeenkii ayaa isqabsaday oo isdagaalay oo gacan iskula tagay dabadeeto waxaa dhacday inay iskula tagaan waalidkii dhalay waalidkii markay iskula tageen waalidku kaliya wuxuu weydiiyay waxa ay isku haystaan waxa ay tahay iyo inta ay leeg tahay iyo waxa uu sababay inay is haystaan ama is dagaalaan oo gacan ay ka dhex dhacdo labadooda walaalo waxa odaygii weydiiyay labadiiba kaliya waxa isku haystaan waxay ugu jawaabeen ana ka hor guursan iyo gaba hor guursanaysi ayaan isku haysanaa dabadeeto odaygu wuxuu weydiiyay labadii wiil hal shay iga jawaaba dabadeetana waxa doontaa wada helaysaa markaa bay ku yiraahdeen ala guursan iyo ala ka hor guursan ma isku qabsanay markaa uu weydiiyay xoolaha iyo hantida ay ku qooqeen inta ay leegtahay iyo qooqoogu waxa uu ku kooban yahay wala qooqawn maaha wala qiiqawn maaha waxa ku qooqdeen isku qiiqdeen baan u baahnaa inaad ii sheegtaan kadib labadii wiil halka markay xaajadu ay ku marayso waxa dhacday inay koraanku ka damo labadoodiiba koraanku ka damo muxuu ka damay waxba islama hayaan gabdhiina halkan ay taagan yihiin oo sugayaan waxa xaajada ka soo bixi doonta reerka markaasay kala tageen odaygii iyaa ku yiraahdaa xoolaan lahayn laguma qooqeen u shaqaysta labadii nin kamid ah oo ninkii weynaa ka yaraa ayaa shaqaystay dhowr bilood kadib ayuu xoolo la yimid waxa uu xoolo magac xoolo u yeeladii oo xoolo ahayn markaas uu odaygii eegay wuxuu ugu jawaabay waad fiican tahay waad amarkayga waad qaadatay taladeedii waad qaadatay hadda ayaan ku guurin kii xoolaha la yimid markii sida laga yiri kii kale xoolaha aan hay waxba xoolo helin ee curadka ahaa cirku galay dhulku galay wax kastuu sameeyay waa loo bixi waayay markaasuu ka qoostay kii yaraa xoolihii uu la yimiday waxna loogu daray biiqdii iyo banaadhii iyo arkaydii magaalada Darrabe ka dhacday waanu joogno waan aragnay kii kalena halkii uu busto ku laaban yahay ceel iyo saariir iyo murugo ayuu la jiifaa marka waalidadu inay ka daayaan midna moraalka u dhisaan midna ay biqisaan waa laga fiican yahay iyaan oran lahaa anigu marka dhacdooyinka waa waxyaalo badan oo soo joognay oo aragnay weeyaan markaas qisada halkaas ay ku soo koobantay ay ku soo dhamaatay isticmaalkii mujifaa ilaahay ma maqan cidka lagu maqlan marka waxaan jeclaan lahaa asxaabtayda inaan qisadan la wadaago oo dinaguna wax ka faa'iidaan abayaashuna ay ka daayaan sidaas awlaada channelkayga intiina ku cusub subscribe share ta like to way dhiirigelisaa si barnaamijyo ka fiican aan ugu soo gudbin lahaa ayaan jeclaystay marka waad mahadsantihiin daawasho wacan oo wanaagsan ila daawada barnaamijyada soo socda ee dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.